السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوري بان صاحبي الماكينة حركنا أنا عافماد قبطان وقالكيني ما عن أوتر بان إن عن قسم إنه فلقيتي سلوي لها سلمي جبنك أو مدخل بري أنا سمعني وأنا مشغولني فلقيتي إني سوي برتين يوتيوب كا حكم قلنا هاي مدة بدن حل بالو أن سوري wax ku saabsan falanqeymaha weyiga taasoo keentay inaan mashquul aad u fara badan xaqiijii oo lagu furmay awoodi waayo inaan si joogta ah aan iila soo sheergaray falanqeymaha sida isbuuclaha aan samayn jirnay kan iyo cudurdaar insha allah hadda kadib waxaan isku dayi doonaa inaan si joogta ah aan abdheed kaga dhigo aan muuqaalada falanqeymaha isbuuca maalin walbo ama habeen walba ay soo galayso gelinta aan niila wadaago lacagaha jaaniska uu ku jiro lacagaha weyigaasi aan rajeynayno inuu dhaqaaqi doonaan jihada u dhaqaaqi doonaan iyo xagga fundamentalka newska weekan soo bixi doono so muuqaalkan ma rabo inuu muuqaal dheer noqdo maadaama muuqaaladeeda badanaa falanqeymaha ama video analysis aad u dheer yihiin so waxaan isku dayi doonaa insha allah muuqaal kooban oo yar oo aan kusoo koobi doono dhammaan falanqeymaha iyo waxyaabaha weekan cusub marketka ayaan ila sheergareyn doonaa so intaan falanqeymaha bilaabin waxaan ka bilaabi doonaa ugu horeyn fundamentalka inaan fiirino newska weekan jiro sidaan wada ognahay newskan weekan waxaa jira newskii ugu weynaa oo sida bilaha usoo bixi jiray so news fara badan way jiraan laakiin newska sida gaarka ah aniga aan xiiseynayo ama aan u rajeynayo aan u sugayo ayaa waxay yahay newska soo bixi doona maalinta jimcaha doolarka sidaan wada ognahay bil walbo bilowgiisii waxaa soo baxo newska nfb-ga loo yaqaano ama luqada ingiriiska loo yaqaano variable employment change kaas oo lagu xisaabiyo heerka employment ama heerka shaqo la'aanta ee waddanka mareykanka ama lacagta doolarka so waxaa ognahay in maalinta jimcaha uu newskan soo bixi doono sidaan shaxda ugu wada jeedno maalinta friday ay ku qoran tahay july 8 ayuu soo bixi doonaa so waxaa ognahay in lacagta doolarka ah waqti xiisa aad u fara badan ay hadda ku jirtaan ognahay in korarkii ugu sareeyay muddo 20 sano ka badan ay hadda sameysanayso sababta ugu weynna tahay muuqaaladii hore u sheegay in interest rate waddankii ay sare ka caadi kulmayo interest rate-kana inay kor u kaco waxaa sabab u ah in waddankii inflation uu ku dhuftay waxaan wada ognahay bishii may interest rate-ka newskii cpi soo baxay haddii aad la socotid in interest rate-kii waddankii uu almost ahay 8.6% kaasoo ah sare wixii ugu sareeyay sidoo kale waxaa ognahay in gbb wigii hadda soo dhaafnay sicir bararka asigana si la mid ah uu gaaray 40 sano meeshii ugu sareysay oo ah 9.6% inflation ayaa ku dhuftay ayadana GBP-da ama dhaqaalaha lacagta GBP-da ama UK so dhibaatadan ugu weynaa waxay tahay dagaalkan hadda ka socdo Ukraine sidoo kale gaaska oo qiimihiisa sare u kacay caalamka la kulmayo sidoo kale waxaa hilmaamis mudan ayadana inuu hilmaamin cuntada xagga foodka ayadana barbareemo badan uu jira maadaama uu yahay in Ukraine ay tahay waddanka ugu badanaa ee Yurubtan cuntooyinka qamadiga ama weydka wax loo yaqaano dhoofi jiray sidoo kale waxaa xusid mudan in weygii la soo dhaafay madaxa bangiyada mareykanka maruu hadlayay ninkii odaga Jane Powell uu si cad u sheegay in interest rate ay kor usii qaadi doonaan aysan saameyn ku yeelanaynin ama saameyn aysan ku leeyahin markay maashadaha kor u kaco in interest rate ay kor usii qaado sida caadiga inta interest rate kor loo qaadayo ama interest rate la sii qaadayo waxaa sii kordhayo ama kor usii socon doono lacagta doolarka waayo mar walba interest rate kor loo qaado sida normalka ah dadka ayaa wax badan iibsanaya taasaa keenayso ama buying powerka dadka ayaa keenayso inay wax badan iibsadaan marka dhaqaalaha loo fiiriyay interest rate waa wax kaliya uu control karo inflationka waddanka ku dhufta ama inflationka hadda ay kulmayaan mareykanka ama lacagta doolarka ayadana ay kulmayso so marka wuxuu leeyahay xogayaha kaliya qaabka ku maamul karnaa waxay tahay in inflationka aan kor u qaadno marka newskan waa sheegi doonaa sidoo kale newska waxaa xusid mudan in bishii lasoo dhaafay 390,000 uu ahay laakiin bishaan hadda forecastiga la rajeynayo ee tahay 275 taasoo ayadana micno kale u yeelayso laakiin hadda daatada saxda ma hayno daatada waxay soo bixi doontaa maalinta jimcaha markii waqtigii la gaaro so newsada weekan jiro newskaas ugu weyn news kale waa jiraan laakiin midka ugu weyn weekan aan sugayno wareed fiigaas qaybta sagan ugu gudbi doonaa falanqeymaha newsada weekan jiro iyo sida saameynkooda u yeelan doonaan so waxaan hadda u gudbi doonaa qaybteennii technical analysis ama technical analysis ahaan
sida caadiga ah maraba muuqaalka inuu saaid u dheeraado waayo waxaa ogtiin muuqaaladeeda badanaa anaas inuu saaid ugu yahay sababta ugu weynna waxay tahay inaan jartiskii sawiradoodii iyo waxaas waqti badan noogu qaataan sidaas awgeed keliya waxaa ku hoos dul sharxi doonaa ananaaskaygii oo aan mar hore soo samaystay aan isbuucii isku soo diyaaray so hadda waxaan ujeednaa dxyda ayaan joognaa dxyda saan horey dhowrba igu sheegay dxyda jihadeeda aad ogaato waxaa kuu fududaanayo in lacagaha doolarka kuu base currency kuu quotes way inaad fahanto tusaale ahaan waxaa ka wadaa inaad fahanto euro usd jihaday aadayso iud usd iud usd nsd usd iyo kuwa kale base currency oo ah usd kaadka camal usd kaadka camal ugu horeyso usd chf ugu horeyso iyo usd gbY marka kuwan aad jihada doolarka si fiican u soo ogaato waxaan waxay leeyihiin waxa la yiraahdo correlation doolarka hadduu kor u kaco tusaalahaan usd chf ku usd u horeeyo ama base currency kuwa loo yaqaano kor ayay la aadaan doolarka kuwa quoteska ama doolarka u dambeeyana ayagan hoos ay la aadaan marka muhiimadda dxy aan sharxaad ugu bilaabayo waa midaas si aan usii ogaado jihada aadi doonto dxy si lacagaha kale aan u tixgeliyo so waxaan u jeednaa saaxiibayaal muddo in dxy ba ay cirka sii marayso haddii aan one day tagno si aan u wada fiirino muddo dheer doolarka meesha uu ku salaysanaayo ama jihada uu qabanaayo haddii one day aan aragno waxaan u jeedaa doolarka in abtirin innaba caadi ahayn uu yahay abtirinkan almost uu soo bilaabay 2021 uu abtirin saaid uu yahay haddii aan fiirino weekly aan sii tagno waxaa arkaysaa doolarka iskooro badan inuu hore u jibiyey oo meelo badan oo xili hore gaaray xataa uu sii jebiyey hadda tusaalahaan waxaan u jeednaa meeshaani waa meeshii ugu adkeeday uu gaaro 2016 ama 16 sano ka markuu sameeyey meeshii laga soo celi waayay almost waxaa aragnaa 2016 doolarkii inuu dhagaha ku dhuftay oo haygii ugu sareeyay uu samaystay tan iyo 5 sano hadda ugu dambeysay so waxyaabahaas ugu weynna waxay taas hore ku soo sheegay interest rate aan inaba caadi ahayn ee marka kasii dambeyso kor loo sii qaadayo ama interest rate doolarka muddo ku socdaybo inay mar ka dambeyso kor u sii qaadaan taas ayaa keenayso in lacagtii ayada dhan abtirin ahaato oo dhanka hore ay u socoto so haddii aan dib u soo laabno oo time frame-yada hoos aan imaano si aan usii ogaano jihada saxda weegan doolarku ahaan doono oo haddii aan fiirino waxaan isla jeednaa ama wada aragnaa sidaad fiiriso meel walba oo hadda aan calaamadeeyey waa baro aad u muhiim ah laakiin hadda barta loo muhiimka ee waxay tahay meesha hadda doolarku uu marayo waxaan u jeednaa in maalintii hadda jimcihii doolarku sarkaca uu sameeyey uu gaaray boontigaas sare waxaa sugeynay inaan aragno wax reaction ah meeshaan inuu ka dhaco tusaale ahaan camal inuu meeshaan nooga abuurmato wax hay ah ama hay ka sareeyey hay ka sareeyo haygii hore aan helnay 14 June so meeshaan dhacay isla markii uu soo laabtay sidoo kale bartaan haddii aan 1 hour ka sii tagno si aan usii fiirin ama 2 hour ka tagno waxaa arkaynaa bar muhiim inay tahay oo trankii mar walba uu kor u kaco uu mar walba soo taabanayo uu dib ugu soo laabanayay haddii fibka aan ku fiirino si aan u wada aragno bartaan muhiimadeena oo leedahay waxaa arkaynaa exactly bartaan inay ku aadan tahay 50% oo ah meelaha badanaa suuqa markuu dhaqaaq sameeyo uu ka soo laabto ama Fibonacci-ga meelaha badanaa lagu ogaado pullback and retracement-ga meelaha ku sameeyo marka bartaan bar aad u muhiim ah waaye hadda marka wax kaliya waxaan doolarka filayaa waxay tahay in abtirinkiisi uu si nadiif ah u soo wato oo abtirinkiisi sii socon doono ilaa aan ka arki doono higher cusub so marka hadda ani ahaan waxyaabaha doolarka sugayo waxay tahay in abkiisii hadda wato oo kor u sii dhaqaaqo kadib aan aragno in meeshaan inuu soo jebiyo higher cusub inaan meeshaan noogu soo abuurno kadib rajaynaan doolarka inuu soo restgareeyo hawada sii gala doolarka so waxyaabaha ka rajayn doono doolarka waa intaasi mar inaan kusii fogaado muuqaalka si uusan ku dheeraanin waan ka figi doonaa oo waxaan tagi doonaa lacagaha kale ee qasaysa arrintan ama doolarka ee qasayso so lacagta koowaad aan falanqaynteeni isku dhufan doono waxaa ka mid ah lacagta USD CAD sida ujeedid channel ayay ku jirtaa channelkan waxaa ka weyn haddii aan wada tagno one day waxaa arki doontaa in channel weyn uu jiro oo mar walba USD ay kor ku xiisay soo laabanaysay waxaa ujeednaa channelkan inuu soo bilaabay 16 October qaybtii ugu sarreysay gaaray 16 December uu soo laabtay 6 April gaaray qaybtii ugu sarreysay 12 May gaaray uu soo laabtay 2 June uu gaaray si la mid ah 17 June uu soo gaaray hadda
waxaa u jeednaa in channel kale gudaha uu ka samaysmaayo so waxyaabaha USD card aan ka rajaynayo weegan ayadana waxay tahay almost waxaan u jeednaa in laba channel gudaha aan haysano waxyaabaha ka sugaya waxay tahay ayadana inuu kor u kaca uu sii samaysto oo channelka haddaan sii socdo kadib aan aragno breakout value ama breakout weyn oo ah trendkii weynka inaan ka aragno ama channelkii sare inaan ka aragno hadda waxyaabaha ka filaa waxay tahay in qaybtaas kore ee tagto kadib aan fiirino marketkana siiso haddii breakout uu dhaco kadib aan sii baygareyno marka USD waxyaabaha weegan ka filaa ayadana waxay tahay inay baygeeda sii socdo haddaa kasii gudbo waqtigoo la haayo iyo muuqaalkaan rabin inuu aad u fara badnaado ayaa mar walba isku dayi doona inaan soo koobo inta kale waxaa kula talin lahay keliya trade idea ka qaado fadlan ku trade gareyn fikridan waayo wax walba ayaa marka isku bedeli doona wixii update ah ama isbedelo ee ka baxa ama kusoo kordha dib ayaan kala soo wadaagi doonaa aan group telegram ayaan soo dhigi doonaa isku day inaad telegramkeeni kusoo biirto si aad u hesho warbixino iyo xogta dheeri ah oo ku saabsan tradeada hadda meesha ku anaskareynayo so lacagteeni kale waxaa ujeednaa USD CHF constellation ayay ku jirtaa waxaan ujeednaa in dollar taabasho hoose samaysato maalinta taabasho kore samaysato ayadana kuma fogaan doono waxyaabaha ka rajaynaynaa waxay sida hadda ujeedna channelkii inay soo retest gareysay kadib haygan ama haygii hore meeshii laga soo laabtay inaan hay cusub ka aragno retest ka aragno kadib ayadana wasii baygareen doonaa oo baygeeda ayaan u raaci doonaa haddaan kasii gudbo lacagta xigo ayadana waxay noo noqon doontaa euro USD dollar oo ayadana xiise gooni leh eurada wiigii hore qofkii ka trade gareeyay ama wiigii hore dadkii isha ku hayay difcayn ayay u dhaqaaqday oo qofkii intriyaashan hadda aniga ii fiirsan qofkii trade ka qaatay lacag fiican ayuu ka qabsaday so euro wiigii hore trade fiican aniga ka helay oo aan kor kasoo qaatay oo ilaa qaybtan hoose ilaa 100 bid camal iskaas kaaga baxay so wiigan euro USD waxaa ujeednaa inay xiise leedahay haddaad fiiriso justice-keyga waxaad ku arkaysaa meel walba meelihii kasoo laabatay meelaha supportigu ah meelaha resistance isku bedelay hadda meeshaan waxaa ujeednaa inuu support yahay kadib resistance isku bedelay kadib oo soo laabatay bar muhiim ah euro USD taagan tahay almost tiriyada ugu jira oo sell ah mar hore ka sell gareeyay marka waxaa ka sugaynaa waxay tahay inay hoos usoo dhacdo euro USD hoos u dhaceedii ay wadato oo meeshaan retest kusoo samayso ujeednaa almost in rejection meesha ku samaystay kadib waxaa ka rajayn doonaa inay meesheedii usoo laabato kadib waxayna siisa arki doonaa haddii breakout uu dhaco retest dhaco ama kadib rejection uu dhaco ama meesha kasoo laabato trendlinkeeni haddii kusoo retest gareysan bay ayaa usii raaci doonaa marka euro USD aniga ahaan seb ayaan ka sugayaa inta confirmationkeedii dhamaysanaysa hadda ama rejectionkeedu ka dhacmaayo ama New York intuu ka furmaayo maadaama hadda muuqaalka hadda xilliga aan sameynayo uusan furnayn suuqa New York lacagteeni kale haddii aan usii gudno ayadana GBUSD ayaa noqon doontaa GJ wiigii hore xiise gooniyey laheeda oo dhaqaaq waali ayaa samaysatay so waxaan ujeednaa GJ 1 hour-ka haddii aan 4 hour-ka tagno si time frame-ka fiican aan u fiirino waxaan ujeednaa inay ayadana down trend ay tahay down trend-geedii almost uu soo bilaawday 30 May ilaa hadda down trend ku jirto marka ani ahaan waxyaabaha aan GBP ka fiirinayo haddii aan sadkeygii samaysto channelkeygii haddaan samaysto almost waxaa ujeedaa meeshaan in 3 taabasho 4 taabasho meeshaan aan ka haysto oo mar walba meeshaan markay imaado JJ laga soo celinayo oo taabashooyin badan ay jiraan so si lamid ah meesha ayay hadda joogtaa marka waxyaabaha ka rajaynaa ayadana waxay si lamid ah designkii euro USD samaysanaysay in ilaa New York furmaayo sugno kadib markii rejection aan aragno test la samaysto kadib aan soo raacno almost meeshaan waxaa ku aragnaa wiigii hore inay meeshaan mar imaaday wiiganna ay hadda timaaday laakiin ay ku fiirid garowday oo sida double bottom camal ee meesha ka noqotay so marka waxaa ka rajaynaynaa inay inta imaado haddii aan aragno wax retest ama breakout GJ ama GBU ayadana GU waa sii sell gareyn doonaa marka fikirkeyga GU ku saabsan ayadana halkaas waa kasii gudbi doonaa lacagta kale xigto aan rabno waa AUD USD AUD waxay ka mid yihiin lacagaha sida qaska ugu taageereeyo ama lacagaha set up-koodii high probability-ga oo yahay haddii aan fiirino EU haddii aan fiirino one day waxaa arkaynaa in one day-gii channel qurux badan ay ku dhex jirto ayadana oo almost waxaan ujeednaa channelkeedii in wax ka badan almost 25 August oo soo bilowday sida wada ognahay AUD inay isku dhaqaa isku structure ay samaystaan isku qaab u dhaqaaqaa marka waxaan ujeednaa in channelkan uu soo bilowday 24 August
27 Oktoobar ee korkaas tagtay gobolkii tagtay soo laabatay bottomkii 6 December imaaday kacday 21 Maarso kor tagtay soo dhacday 12 May kor u kacday 8 Juun haddana soo dhacday 5 July oo isbuucii hore aan soo dhacday marka waxaan u jeednaa in structure aad u qurux badan ay samaysanayso iyo ku jirtaba oo already mar walba ay janalka tagto ay respect gareynayso marka haddii aan hoos u imaano ama aan filimyada yar aan fiirino waxaa arkaynaa in janalkii almost ay soo taabo marka maxaa ka rajeynaa waxay tahay ayada wax trade kama gali doono waxaa sugi doonaa intaan confirmation ka helaayo ay ka imaan doonto ilaa qaybtaas hore markay ka timaato haddii sad ahaan iskiisoo soo gareyn doonaa haddii wax breakout uu ka dhacana waxaan samayn doonaa breakoutkan fiirin doonaa retest hadduu ku dhaco kadib TJ waxaa rajeynaynaa inay kor usii kacdo ay soo buuxiso bottomkii kore sidii hore usoo taago jirtay kadib usoo taabo so ayadana waa kasii gudbaynaa lacagteenii xigo waxaan fiirin doonaa ayadana NSD USD oo sidii hore aan kuu sheegay isku design ah ama isku qaab mar walba u socdo markii aad fiiriso ayada iyo IUD-da so haddii aan time frame ka hore tagno si aan usoo fiirino wixii ka socda one day-ga inay isku mid yihiin iyo inay kala duwan yihiin qaabka structure-ka marka waxaan u jeednaa si lamid ah structure-kii horey aan ku tusinayay inay isku mid yihiin oo isla janalka ku jiraan haddana waxyaaba cajiibka ah waxaad fiirinaysaa in isla waqtigii Agoostadii ahayd uu isla bilaabay janalkan inay labadooda dhex galaan marka taas ku cadaynayso in labadooda xiriir dhow ay leeyihiin qaab dhaqaaqeedkooda markii la fiiriyo so marka waxaan u jeednaa hadda in si lamid ah ayadana ay bottomkii hoose soo taabanayso aan u jeedno in janalkii hadda ay ku jirtay meeshii aan horey unoo eed supportigii resistance isku bedelay soo gareynayso marka waxyaabaha sugi doonaa waxay tahay ilaa almost 100 camal in meesha ku jiro oo sal ah kadib salkeeda soo raacno markuu bottomkaas soo taabto 100kaas bay ugu dhameeyay kadib aan buy garee doono oo buy ahaan u gali doono maadaama hadda labadooda isku dhaqaaq ay yihiin doolarkana kor u kac uu sameynayo doolarka markuu kor u kacan lacagtan NSD-da iyo USD-da badanaa dhaqaaqoodii doolarkii ayuu raacaa oo opposite ayuu ku yahay marka waxaa rajeynaa waxay tahay inay inta imaado kadib buygeeda wadato kadib ilaa meesheedii bottomkeeda sare ee tagto so waxaa rajeynaa falanqaynteedii inaad wax kala dhaxteen muuqaalka oo aan doonin inuu dheeraado oogiisa ayaan isku dayay inaan soo gagaabiyo fadlan haddii janalka markii kugu horeeya tahay ama marka kugu horeeya muuqaalkan kusoo gaarayo tahay subscribe hoose sidii gelin oo noqoto sidoo kale ha ilmaamin haddii aad xiisaynayso Netflix inaad linkiga iska diiwaangeliso si wixii caawinaad aad iga hesho sidoo kale ha ilmaamin inaad linkiga descriptionka telegramka yaalna aad soo biirto wixii caawinaad markaas aad iga soo weydiiso muuqaalkeena intaa kasoo biirtas ayaa kusoo koobaya kaga tagaya sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu